daawadayaal ku soo dhawaada halkani waa somalishe.com sidii caadada ahayd waxaan idin haynaa qaybtii labaad ee taariikhda Jarmalka gaar ahaan magaalada Berlin iyo qaabkii loogu xidhay darbigii la oran jiray darbigii Berlin dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa bilaabmay khilaaf kale oo u dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka oo hogaaminayay Faransiiska Ingiriiska oo la isku oran jiray xulafadii reer galbeedka iyo Sofiyeedka oo hogaaminayay Ruushku taasi oo magaalada u kala qaybisay laba qaybood oo kala ah Faransiis Ingiriis Mareykan iyo Sofiyeedka oo qaybta bari deganaa galbeedkana ay ku sugnaayeen ciidamadaasi reer galbeedka ee Mareykanku hoggaanka u ahaa haddaba dagaalkii qaboobay adduunka ayaa halkaasi ka bilaabmay waxaana ku dhacay magaaladaasi Berlin burbur kale iyo dhimasho kale oo saa'id ah haddaba sargaal u hadlayay ciidamadii Mareykanka ayaa sheegay inuu xiriirkani sii xumaaday sidoo kale dhinaca Ruushka ayaa iyaguna sheegay inay sameyn doonaan darbi aad u weyn kaasi oo ugu tala galeen difaac 1961 bishii 8 ayaa magaalada Berlin waxa ay ku waabarisatay hal mar darbi aad u weyn oo lagu kala qaybiyay dadkii magaalada ku sugnaa oo ka mid ahaa ninkani ayaa ka waramaya wuxuuna sheegay in darbigaasi uu noqon waayay sidii la filayay ee difaaca ahayd balse uu noqday mid xabsi u noqda shacabkii ku dhaqnaa magaalada Berlin oo dib isku arki waayay darbigani oo aad u dheeraa ayaa waxaa lagu xiray siligaan ka kooban siligaanta dadka qabsada iyo electric iyo ciidamo waardiye u ah oo amar lagu siiyay inay dilaan qof kasta oo u dhawaada darbigaasi haddaba dadkii ayaa bilaabay inay ka cararaan oo ay u gudbaan qofkii u horeeyay ee ku dhintayna waxaa la oran jiray wiil 17 jir ahaa oo magaciisa la oran jiray Peter Fischer 40 sanadood ayaa xaaladaasi ay ku sugnayd magaaladan Berlin waxaana lagu xiray siligaan danabaysan oo qofkii taabsada waxaa qayliyaya taawarada laga hagayo darbigaasi sidoo kale shacbiga ayaa iyaguna waxay bilaabeen in gurigan ay u jeedaan inay ka qodaan god aad u dheer oo ballaciisu gaadhayo dhererkiisuna gaadhayo 100 mitir halkaasi oo u talaabaya dhinaca kale ee magaalada si ay ugu baxsadaan goobjoogahan oo ka waramaya waqtigaasi ayaa sheegay in ay habeenkii qodi jireen maalintiina ay is ilaalin jireen habeenkii inta ay qodayaanna ay iswaardiyeen jireen sidoo kale haweeneydan ayaa sheegtay inay ahayd haweeneydii u horeysay ee iyadii qoyskeedu ka gudbaan markay in badan socotay waxay sheegtay inuu naqasku ku dhagay neef qabatin ay ku dhacday gabadhan iyo caruurteeda balse nasiib wanaag waxay soo baraarugtay ayada oo nabad qabaan iyadii caruurteedii sidiina ay ku gudbeen waxay tiri weligay ma ilaawi doono ilaa imikadan waxa igu weyn xasuusta waqtigaasi dhibaato aad u fara badan ayaan la soo kulannay waxaan rajaynayaa inayna dib u dhicin ayay tiri haweeneydan